dejinta qorshe wuxuu u baahan yahay qorshe sanadka dhalan doono sidii aa uga faa'iideysan lahayd isla markaasna isbedel horumarineed oo aanan caadi ahayn noloshaada qaabka ugu samayn lahayd. sanad walba marka uu sii dhammaanayo goobaha lagu gado bugaagta yaryar ee stationeryada waxaa buuxiya dadyo kala duwan oo iibsanaya bugaagta yaryar ee lagu dejiyo qorshayaasha. waxaa la isla dhex maraa oo dhasha xamaasad tilmaamaysa dejinta qorshe qof kasta oo aad aragtaana hubaal waxa uu niyadda ku hayaa qorshe, laakiin xamaasadaasi ma dhaafsiisna dhowrka maalin ama toddobaadyada ugu horeeya ee sanadka. intaas wixii ka dambeeyana sidiisii ayuu ku laabanayaa jawigu. haddaba arrinta ugu weyn ayaa ah in dejinta ajendayaashaasi aysan la socon wax fulin ah, qofkuna uuban u malaynayo guulgaadhid keliya inuu dejiyey qorshahaas. waxaa macquul ah in sanooyinkii aynu soo dhaafnay sida 2020kii 23kii iyo kan hadda sii galbanaya ee 2024 waxaa laga yaabaa inaad dejisay yoolal badan se maanta dhammaanaad ka taagan tahay faro maran aadanna ka xaqiijin hal yool. haddaba maxaa khaldan? muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaa waxa khaldamay iyo ilo kaleba. magacaygu waa Jimcaale Daahir, halkanina Wasalgaad Media. dabcan inta aanad ku dhaqaaqin dejinta wax yoola waxaa muhiim ah inaad ogaato oo ay qasab tahay inaad ogaato oo ah waxa keenaya inaad sanad walba warku kaaga dhammaado toddobaadada ugu horeeya oo ah waxa keenaya fashilkaada. haddaba waxyaabaha ugu waaweyn ee keenaya fashilkaada ayaa ah waxa kow ka ah inaad dejiso qorshe aanan caddayn, sida inaad dhahdo sanadkan waxaan rabaa inaan luuqado barto, iyo sidoo kale inaad dhahdo waxaan rabaa inaan hantiilo noqdo. haddaba miyaan garanay inaad rabtid inaad barato luuqado sawaatee? sidoo kale haddii aad doonaysid inaad hantiilo noqoto halkuu ka imanayaa dhaqaaluhu? ma waraaqaha lacag u bedeli? haddaba waxaa lagu taliyaa inaad ku fikirto ama dejiso qorshe ah tusaale ahaan waxaan rabaa dakhligayga inaan kordhiyo, inaan xirfad hebel barto waayo berri waan ku shaqaysan oo dakhli ayay ku keeni. mid labaad ayaa ah waxyaabaha keenaya inaad dejiso qorshe aan qalinka ka dambeyn ayaa ah inaad dejiso qorshe aad u adag. dabcan waxaa macquula marka aad rabto inaad qorshe dejiso inaad xamaasadaysan tahay oo arrinkaagu yahay mahmaadii odhanaysay habar fadhida legdini wax uga fudud oo aadan kuba baraarugsanayn waaqacaaga oo arrinku kaa yahay iska deji uun. haddaba marka aad qorshe dejinayso dul istaag awoodahaaga oo deji wixii awooddaada ah iyaga oo isbiirsaday ayaa keenaya qorshihii adkaa. sidoo kale midda saddexaad ee keenaysa inaad ku fashilanto qorshahaaga ayaa ah inaad dejiso ahdaaf badan, inaad warqad ku soo qaadato kadibna aad qorto wax kasta oo kugu soo dhaca, sida inaad iska qorato waxaan rabaa inaan dhisto jir muruqyo waaweyn, waxaan rabaa inaan akhriyo 100 buug, waxaan rabaa inaan 4 luuqadood barto. waa wax ka mid ah sidoo kale inaad fashilanto. halkan marka ay marayso waxaa lagu taliyaa inaad shayga qiimaha leh awooddaada isugu geyso. waxaa laga yaabaa inaad ka fikirayso maxaan ka faa'iidayaa inaan samaysto qorshe? waxaad ka faa'iidaysaa aragti cad. ka soo qaad inaad ka tegayso magaaladaada una socoto magaalo kale. haddii jidku ammaan yahay waxaad ka fikiri kartaa in gaariga aad la socoto jabo, roob da'o ama dhib kaleba timaad. laakiin haddii jidku bilaa amni yahay sidoo kale isagana warkaadu waa badan yahay. marka aad sii ogtahay dowgaas waad ku sii talagelaysaa. qorshuhuna waa saas oo marka aad qorshe dejiso way ku kala caddahay meesha aad u socoto iyo meesha aad marayso labaduba. caqabadahana waad qiyaasaysaa. sidoo kalena waxyaabaha aad ka faa'iidayso waxaa ka mid ah inaad xadido ama aad ku socoto qorshahaaga una dejinaysid inaad gidaarka ku nabato ee waxaad u dejinaysaa inuu ku noqdo jid aad u marto waxaad rabto. inta aanad dejin qorshe marka hore waxaa muhiim ah inaad ku samayso format naftaada oo aad isweydiiso maxaan rabaa, xaalkaygu waa sidee hadda, iyo su'aalo kale oo ku bidhaaminaya qorshahaaga. in badan ayaad maqashay wax akhrintu waa muhiim, waa kan adna aad ka go'aansatay inaad sanadkan bilowdo. waa sax, waa ujeed cad, laakiin ogow akhrisku inuuna ahayn buug iyo koob kafee ah oo galab lasoo sawiro, se waa habdhaqan, caado iyo la qabsi. haddaba si aad akhriska u bilowda dejin sanadkan waa inaan intaas buug akhriyaa, se ku bilow dhowr sadar. sidoo kalena ha noqon fulay ula badan oo aadhihin bil hebel waxaasan qaban, toddobaad hebel, maalin hebel, saacad hebel. arrinku saas maaha.
adduunna gacanta kuma haysid noloshan mana ogid wax dhacaya saacadahaas iyo maalmahaas ee taas beddelkeeda ku dalaal inayna saacad iyo minid noloshaada ay kugu dhaafin malaayacni ilahaas ayaan kusoo goobaynaa muuqaalkeenan ee haddii aad wuxuun ka faa'iiday ha bixin adoon muuqaalka like saarin haddii aanu nagu soo biirin